waxaan rabaa maanta inaan idin soo bandhigo qalabka shinnida loo isticmaalo noocyada ay u kala baxaan. Bahashan waa bahasha protectionka, waa koofiyadda waxaa loo isticmaalaa in la isaga difaaco qaniiniyada shinnida. Hadda waxaan rabaa inaan qalabka shinnida lagu xanaaneeyo waxa idinka tuso. Xanjadan waxaa loogu talagalay waa frame frame-kan in lagu dhajiyo ayaa loogu talagalay. Qof ayaa i weydiiyay hadda ka hor oo beerta igu soo booqday, malabka wuxuu u maleeyaa in caagada uu ku jiro oo beertu iska dhex yaallo. Saas ma aha. Malabka marka hore wuxuu ku jiraa xanjadaas oo ku dhex jiraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسسونا قد وناكسن داوديال سواح وناكسن مالين وناكسن ومالين جمعة ما توحن كسوغن هاي beertii shinnida Baydhabo. Maalmahan waan isweynay soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaal ka soo diyaarino beerta shinnida iyo qaybtii kale ee beerta. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ama aad uga heli doontaan muuqaalada aan idin ka soo diyaarin doono qaybta beerta shinnida. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Soo dhawaada, la socod wanaagsan. way daawadayaal soo dhawaada mar kale. Hadda waxaan rabnaa inaan guda galno shinnida. Waxaan rabaa maanta inaan idin soo bandhigo qalabka shinnida loo isticmaalo noocyada ay u kala baxaan. qalabka protectionka loo isticmaalo, qalabka wax lagu soo goosto, qalabka waxyaabahaas dhammaan ayaan sharxi doonaa maanta, iyo noocyada aynu isticmaalno ee shinnida guryaha shinnida loo isticmaalo. Guryaha markaan leenahay waxaan ula jeednaa noocan oo kale. Hadda waa nooca traditionalka Soomaalida ay isticmaalaan iyo meelaha qaar laga isticmaalo. noocanna waa nooca European beehive-ka ay dhahaan ama noocyada sanduuqyada kuwa casriga ah loo yaqaano. Marka iyaga waxay u sii kala baxaan noocyo badan. Marka waxaan rabaa inaan maanta intaas kala dhigno aan idin faahfaahiyo siday u kala baxaan. waayahay bahashan waa bahasha protectionka, waa koofiyadda waxaa loo isticmaalaa in la isaga difaaco qaniiniyada shinnida. qaybta kore ee madaxa keliya waaye. sidan ayaa loo gashtaa. waa kana markaad ku dhex jirta baaritaanka shinnida, markaad rabto inaad shinnida baarto waxaad soo gashanaysaa bahashan. ilaan mararka qaar waxaa laga yaabaa shinnida inay kusoo weerarto ama qaniiniye wax kusoo aado. marka qaybta wejiga maadaama ay ugu daran tahay, qaybta wejiga bahashan ayaa loo gashtaa. waa koofiyad single ah. sideedaba shinnida xilliyada ay dadka cunto waa xilliga ay ilmaha ku jiraan, ukumaha ilmaha ay ku jiraan. xilliga ay malabka badan leedahay badanaa qaniiniyadeeda way yar tahay. shinnida waxay dad cuntaa ama ay tahay mid aad u dhib badan oo dadka soo weerarta marka caruur ilmo ay ku jiraan. markaas waa difaaceedu wuu adag yahay. waayahay daawadayaal soo dhawaada mar kale. hadda waxaan rabaa inaan qalabka shinnida lagu xanaaneeyo wax idinka tuso. weliba nooca sanduuqa ah ee noocyada casriga ah ayaan rabaa inaan wax yar idinka tuso. qalabka la isticmaalo wuxuu isugu jiraa dhowr nooc. tusaale ahaan sanduuqan wuxuu u kala baxaa laba nooc. macnaa isagoo hal sanduuq ah ayuu wuxuu isu saaran yahay labo. tusaale hadda midkan oo kale aynu aragno sanduuqan hadda aad u jeedaan dhexdiisa waxaa loogu talagalay 10 frame ama 12 frame inay ku dhex jirto. waxaa lagu diyaariyaa xanjadii ayaa lagu dhajiyaa. xanjadaasna kulli halkan ayay ku jirtaa. aan idin tuso. waayahay saad u jeedaan xanjada waa midan. marka xanjadan waxaa loogu talagalay waa frame frame-kan in lagu dhajiyo ayaa loogu talagalay. sidan oo kale marka shinnida la diyaarinayo ayaa la geliyaa. saad u jeedaan sidan ayaa loogu dhajiyaa. waxaa loo isticmaalaa marka dhejinta, marka la dhejinayo waxaa loo isticmaalaa bahashan sida loogu dhejiyana. kulley fiilayaashan waad u jeedaan alwaax ayaa la dul saaraa. midkan kan ayaa lagu jiidaa. marka xanjadii iyo fiiladii waa isdhex galayaan. kan ayaa loogu talagalay in lagu dhajiyo. baalkan xanja dhajiye ayaan dhahnaa anaga. frame-kii iyo xanjadii ayuu isku dhejinayaa. marka la dhajiyo waxaa la geliyaa sanduuqa. markay shinnida cusub tahay ayaa la sameeyaa. midkan marka brooderka aynu dhahnay shinnida lagu diyaariyaa. boqoradii iyo shinnidii cusbayd ayaa halkan la geliyaa. 10 frame markay diyaariso ay xanjo ka samayso, kulli ay ku dhajiso, ay buuxiso, waxaa la sameeyaa si qofka inta ay shinnida halkan ku jirto ay bilow tahay ay ka dhisanayso wixii malab ay samaysato. qofka shinnida xanaaneynaya looma baahan inuu ka gooyo, waayo shinnidan hadda koriimo ayay ku jirtaa, inay soo korto ayay ku jirtaa. wuu iska daynayaa, wuu korinayaa, meel barwaaqa ayaa la geenayaa. kadib markaad aragto shinnida inay buuxisay weelkan, ila mar walba waa inaad fiirisaa adiga. markaad aragto inay buuxisay ayaad waxaad samaynaysaa 2 frame ayaad halkan ka soo saaraysaa. waxaad gelinaysaa 2 frame kale oo xanjadii hadda aad ku dhejisay kan oo kale oo faaruq ah. labada frame ay dhisatay waa soo saaraysaa banaanka soo dhiganaysaa. 2 frame aad ku buuxinaysaa booskeeda.
waxaad dhigaysaa queen excluderkii midkan shabaqan waxaa loogu talagalay in boqorada aysan kasoo dhex bixin oo shinida keliya yariis ay kasoo dhex baxdo waxaa la sameeyaa super ayaa la saaraa midkan brooder ayaanu dhahnay shinida lagu diyaariyaa marka hore kadib waxaad samaynaysaa midkan ayaa saaraysaa waa super isaga hoos wuu ka duleelaa saad u jeedaan qaybta hoose way duleelsan tahay marka midkan ayaa inta la saaraya midkan markaad halkan saarto labadii frame ee hoos aad ka soo saartay halkan ayaad gelinaysaa laba frame halkan ayaad ka saaraysaa qaybta hoose ayaad geynaysaa macnaha waxaa loogu talagalay labada frame ee diyaarsan ee shinida ay saaran tahay markaad halkan soo geliso shinidii waxay arkaysaa in frame diyaarsan uu halkan ku jiro marka waxaa hadhow waxay samaynaysaa shinidii qaybta hoose ayay ka soo baxaysaa qaybtan kore ayay imaanaysaa keliya ukumaha saynu sheegnay waxaa dhala boqorada keliya boqorada halka hoose ayay ku jirtaa kama soo baxayso shabaqan ma soo dhex marayso hoos ayay ukunteeda ku dhalaysaa shaqaalihii malabka sameynayay dhammaan way soo baxayaan korkan ayay imaanayaan midkan marka fareemidiisa dhammaan waxaan malab ahayn ma gelinayso shinida haddii shinidaad ay ku badato sanduuq saddexaad waad saari kartaa mid saddexaad aad sii saari kartaa marka boqorada halkan ayay ku jirtaa shaqaalihii halkan ayay ku jiraan wixii dhan halkan adiga kan ma lihid oo kan ma taabanaysid keliya waxaad malabka kala baxaysaa midkan kore kan kore ayaad malabkii kala baxaysaa fareemadan kulli malab ayay gelinaysaa haddii xilliga barwaaqada ay joogto waa yahay daboolkeeda ayaynu saarnay shinida sidan ayaa loo diyaariyaa waxaad arkaysaa shinida hadday meel barwaaqo joogto kuwan oo subarka way sii badan karaan waxaad samayn kartaa haddii shinida shini xoog leh ay tahay laba subar laba browder ayaad u samaynaysaa midan iyo midan oo kale laba browder ayaad uga dhigaysaa browderka waa meesha ukumaha shinida ay dhigato ay boqorada ku samayso shabaqii halkan ayaad dhigaysaa laba kale ayaad sii saaraysaa marka labadan kore waa kuwii subarkii waaye malab kaliya ayaa ku jira oo boqorada ma soo gudbayso oo shabaqii ma soo gudbayso waa yahay buraashkan isaga waxaa loogu talagalay frameka markaad soo saarto inaad shinida isaga daadiso ayaa loogu talagalay shanladan waxaa loogu talagalay shinida markay malab samayso badanaa malabka xanjada ku dhex jira afkeeda wuu xiran yahay ma furna marka waxaa la sameeyaa midkan shanladan saad u jeedaan hadda afkeeda nicyo waxay leedahay meel dhuudhuuban waa lagu shanleeyaa marka waxaa looga qaadaa xanjadaas ee xuubka ay saartay shinida ayaa looga saaraa marka xanjada si malabkii frame mashiinka loo geliyo oo looga saaro waa yahay midkan isaga waxaa loogu talagalay in malabka lagu sifeeyo waa shabaq malabka lagu sifeeyaa bir kale ayuu wataa oo weyn kolley hadda intan ooma taalo midkanna waa shinida in lagu uumiyo ayaa loogu talagalay ilaan shinida saad u socoto haddaad gasho oo adoon uuminin waxay noqonaysaa in shinidii ay kusoo weerarto marka midkan waa la isaga lagu uumiyaa sidan oo kale shinida marka xoogaa yara waa la isaga wareeriyaa marka bahalkan dabka waa lagu shubaa wuxuu leeyahay halkan saad u jeedaan qoryo ay waxbaad ku shubaysaa dabad waad jinsigar waxaad u raadsanaysaa waa ku shidaysaa kadibna markuu shidmo waad daboolaysaa ilaa 3 saac 4 saac ayuu ku haynayaa markuu xiran yahay shinida isaga uuminaysaa marka hadday kusoo weerarto iyo waxyaabaas aad isaga tiirinaysaa waa yahay birtan ayaa soo hartay birtan waa midda ugu shaqada badan waxaa la sameeyaa sanduuq ayaa lagu furaa waxaa lagu sameeyaa fareemyada lagu kala riixaa waa lagu soo saartaa halkan waa sidan oo kale in framekii aad geliso oo sidan aad ugu soo saarto kale xanjo badanaa fareemada iyada xanjo ay ku dejisaa shinida marka birtan waa birta ugu shaqada badan marka qofka shinida uu isticmaalay labada shay badanaa qofka uusan ka maarmin waa labadan shay midkan lagu uumiyo iyo birtan lagu furo labada shay sida aadka in loo isticmaalo rabo qofka shinida xanaanaya waa labadan shay kulley waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen dad aadkii isoo weydiinay qalabka shinida sida loo isticmaalo sida lagu helo midda kale rabo inaan ku darsado ayaa waxay tahay qalabkan sideen ku heli karnaa ayaa dad isoo weydiiyaan qalabkan kulley waa business dadaba shaqadooda ay tahayba Soomaaliya Muqdisho kala waa laga helaa anaga Baydhabo joognaa Baydhabo dukaamaha jiro oo alaabahan lagu iibiyo oo anaga aan ka soo iibsano dadka qaar dibadda ay ka keensadaan qofba meeshii access uu heli karo waay marka alaabahaas meeshaas laga heli karaa dukaamadaas in la raadiyo magaalada aad joogto inaad ka raadsato haddii Soomaali tahay ama hadday dibadda tahayba marka qalabka loo isticmaalo shinida waa intaas sidaad ku heleysana waa inaad soo iibsataa qof kulley lacag haysta wax ma weynayo marka aad baad u mahadsantihiin qalabkii iyo barashadiisa maanta halkaas ayaynu ku soo koobaynaa haddana waxaynu dhexgelaynaa shinidii si aynu u aragno
baaritaankeeda iyo gudaheeda sidaan u dhexgeli lahayn shinidii oo aan u kala baran lahayn iyo qaabka malab aan ugu soo goosan lahayn. aad baad u mahadsantihiin. waayahay daawadayaal, saad u jeedaan hadda shinidan malab ayay leedahay. saad u jeedaan halkan malabkii ayaa ku jira. marka waxaan rabnaa qaabkaan usoo goosan lahaa inaad ila aragtaan qaabka malabka looga soo saaro shinida. dad ayaa waxay u haystaan shinida malabkeeda in sida malabkii saafiga ahaa, macnaha tusaalaan malabka markuu miiran yahay oo caag ku jira ayay arkeen dadka badanaa. qof ayaa i weydiiyey hadda ka hor oo beerta igu soo booqday, malabka wuxuu u maleeyaa in caagada uu ku jiro oo beerta iska dhex yaallo. saas ma aha. malabka marka hore wuxuu ku jiraa xanjadaas uu ku dhex jiraa. meesha ayay ku diyaarisaa shinida. xanjadaas ayaa la soo saaraa. marka la soo saaro kadibna waa la miiraa. qaab loo miira ayaa jira. shabaqyo iyo waxbaa lagu miiraa. gacmaha badanaa waa laga ilaaliyaa maadaama jeermis gacmaha uu ka dhashan karo. marka mashiin ayaa jira oo lagu miiro. markaan soo saarana hadda aynu arkaynaa. daawadayaal, saad u jeedaan halkan malabkii ayaa ku jira. shinida waa tanaa. buraash ayaa loogu talagalay, laakiin hadda waxaan geedkan ayaan isaga burinaynaa shinida si ay uga tagto. ilaan shinidii malabkii ayay ku xoonsan tahay. malabka ayay rabtaa inay cabto. saad u jeedaan hadda godkii afka la gelaysaa, malabkii ayay dhuuqaysaa. marka waxay u yeelaysaa inay qiiqan iyo uunka inay kaga gabato, mise waxay is leedahay waa lagu soo weeraray kadib shinida malabkaaga kala bax. marka uunka ayaa lasaga badbaadiyaa. waayahay, hadda tan saad u jeedaan waa malabkii ayaa ku jira. haddaan idin tuso, marka malabkii saafi ah ayaa halkan ku jira. hadda midan kale haddaan fiirino, halkan waa ciyaal waaye. inta malab ma aha. qaybtan malab ma aha. qaybtan waxaa ku jira ciyaalkii oo ukumaheeda ayaa ku jira. qaybtanna malab ayay ka dhigtay. ukumahan way ka saaraysaa. 21 beri ayay ahaanaysaa. ukuntan 21 beri ayay ku jiraysaa. marka hore waa wax yaroo tirxi yar ah. wuu isbedelayaa. baala ayuu yeelanayaa. afka ayay ka xiraysaa. halkan wuu soo baxayaa. shini ayuu noqonayaa. marka waa shinida caadiga midaan hadda boqorada gudaha ayay ku jirtaa. badanaa lama arko. shinida midaan kuwan aan u jeedno waa shaqaalihii caadiga ahaa. kuwan waa workerskii, shaqaalihii waaye. iyaga malabkay soo ururiyaan. waa difaacay ku jiraan. meeshay badbaadi ay ilaaliyaan. marka nadaafadda ay ka shaqeeyaan. wax walba oo dhulkan ku soo dhaco iyaga ayaa nadiifiya. hadda saad u jeedaan meeshii dhexdeeda waa nadiif. weelka dhexdiisa waa nadiif saad u jeedaan. marka shinida gudaheeda intaas yar ayaan ka faahfaahinayaa. kanna waa hadda malabkii oona soo saarnay. hadda xilliga wax yar ayuu dhiman yahay. xilligii goosashada wax yar ayuu dhiman yahay. laakiin waa iska boobsiis uun. waayahay daawadayaal, hadda waxaan nimid noocii sanduuqa ahaa. hadda waxaan fiirinaynay noocii traditionalka ama doolashii dhuudhubnaa ee geedka ka samaysnaa. hadda waxaan rabaa inaan fiirino noocan sanduuqa gudihiisa. saad u jeedaan gacmaha waxaan soo gashtay protectionkii. ileen gacmaha marka lala gelayo qaniiniyadeeda ayaa la rabaa in la iska difaaco. wejigii waad u jeedaan. waayahay, haddaynu bilaabaynaa. marka hore waxaa loo baahan yahay inaad iska uumiso shinida. markaad uumiso kadib sanduuqyada horta aan idin sheego waxay u kala baxaan laba nooc. laba xabay isu saaran yihiin, midkan iyo midkan. hadda midkan waxaa la yiraahdaa subarka waa midka kore ee shinida malabka ay ku diyaariso. kana waxaa la yiraahdaa brooderkana waa midda boqoradii iyo caruurtii iyo waxyaabihii ay ku jiraan waaye. meeshii ay boqorada kusoo dhalaysa waaye. dhexdan waxaa ku jira sidaan idin tusi doono shabaq ayaa ku jira. shabaq loogu talagalay in boqorada aysan ka soo dhex bixin. boqorada kama soo dhex baxayso, kaliya waxaa ka soo dhex baxaya shinida yaryar ee shaqaalaha midda ah
hor u soo sheegnay shaqaalaha ka soo dhex baxaya kadibna halkan ayaa malab ku diyaarinaysaa waayahay hadda shinidan waxaan dejinayaa sanduuqa kore ee subarka ahaa ayaan qaadayaa waayahay kii kore subarkii ayaan dejiyey waxaa ii soo haray broderkii shabaqii waa kana waxaa la yiraahdaa queen excluder waxa waaye shabaqan hadda duleeladan kama soo dhex bixi karta boqorada maadaama ay ka weyn tahay boqorada shinida caadiga ah marka kaliya waxaa ka soo dhex bixi kara shinidan yar yar aad hadda u jeedaan midan yar yarka kaliya ayaa ka soo dhex bixi karta saad u jeedaan boqoradii halkaas ayay ku jirtaa waayahay aynu aragna marka waayahay birtan waa waxa loo isticmaalaa in lagu soo saaro frameada ku dhex jira shinida in lagu soo saaro ayaa loogu talagalay waayahay shinidan waa shini xogaa iska dad yar waaye qaybtana malab ayaa ku jira marka midii hadda midan way kala duwan yihiin saad u jeedaan xogaa yar malab ayay leedahay tan laakiin midaas ayaynu u baahannahay hadda inaynu aragno kale saad u jeedaan hadda halkan waa way qaniintay marka markay saan tahay ma fiicna aad u jeedaan halkan qaniinyadeeda micdii ayay halkaas ku taagtay qaniinyada caloosheedana meesha kaga soo hartay marka wax bay diidan tahay ciyaal iyo waxbaa ku jira in la taabtay diidan tahay markay saan oo kale wild u tahay ee qaniinyadeeda sidan ay tahay xogaa ma fiicna fiirinteeda ma fiicna marka waayahay weerarkeeda badan hadda marka waxaynu samaynaynaa maadaama ay nasoo weerarta waa iska daynaynaa hadda gudaheeda ma sii dhexgelayna maadaama ilmihii ayaa ku jira hadda waa malab badan kuma jiro laakiin ilmaa ku jiro hadda shaqadeeda waan daynaynaa midan framekeeda ayaan ugu celinaynaa waayahay waa queen excluderkii sidan ayaa loo saaraa queen excluder markaa saarto boqorada halkan kama soo baxaysa marka kaliya shaqaalahaas yararka ayaa soo bixi kara kuwa shinida yaryar ayaa soo bixi kara haddana waxaynu saaraynaa sanduuqii subarka ahaa shinida malabka ay gashanaysay hadda kan weli ma soo gaarin iyada waa yar tahay waa shini yar laakiin shinidan hadday badato halkan ayay soo gelaysaa dhankan kan ayay soo buuxinaysaa markaas malab ayay ku samaynaysaa insha allah ما شاء الله barwaaqadan ayaa dalkeena taala anagana waynu ka gaajeysannahay marka fadlan dhulkiina aamina wax ka soo saarta nicmadan ayaa taala waa daawo waa cunto waa caafimaad wax walba marka yaan loo daymo la'aan insha allah dhulkiina aamina oo wax ka soo saarta dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye Gatio
haddaad maqashaan waa biyo beer haddaysan biyo lahayn beer ma aha waxaa lagu tilmaami karaa dhul keliya anaga webi ma lihin baydho webi kuma yaalo laakiin waxaynu qodanaa ceelal beer walba waxaa laga qodaa ceel dhowr ceel anaga hadda beertan shinnida aynu ku xanaanayno ee geedaha aynugu yaalaan ilaa 3 ceel ayaa ku yaala ceelkan kan waa mid saad u jeedaan biyihiisa say u dhow yihiin shinnida xitaa halkaas ayay ka cabaysaa kule muuqaalka waad arki doontaan shinnida halkay ka cabayso biyaha beer kale uma aado waa kana ceelkii waxaa lagu waraabiyaa beerta biyihiisa saan ayay u dhow yihiin barwaaqadan ayaynu haysanaa annaga marka dhallinyaradani waxay leeyihiin baagamuundaynu nahay oo shaqo ma hayno dhulkiina waa barwaaqadan biyahan hadda aad u jeedaan waa nus mitir ceelkan nus mitir ayuu ka bilaabanayaa biyihiisa saad u jeedaan maalintii koowaad ee la qoday biyo ayaa laga helay alxamdulilah waa ilaahay mahadii biyahan ayaynu haysanaa dhulkan ayaynu haysanaa dhallinyaradiina qaar tahriib u baxa iyo qaar aan shaqaysan oo keliya shaqada u haysta in xafiis laga soo bilaabo ma aha xafiis haddaad hesho okay haddaad wax barato siyaabo badan ayaad u shaqaysan kartaa adigoo wax bartay oo qof akademig ah ayaad waxaad samaysan kartaa barnaamij ayaad abuuran kartaa ama shaqo abuur ayaad samaysan kartaa hadda beertan oo kale geed mirood ayaa ku yaala shinni ayaa lagu xanaaneeyaa biyo ayay leedahay marka dhan walba waa si walba ayaad samayn kartaa haddaad shaqo u baahato maaha keliya inaad shaqada aad dhanka sare aad ka fiiriso mararka qaar in qaybaha hoose laga fiiriyana waa muhiim marka dhallinyarada waxaan kula talinayaa faa'iidada dhulka ayay ku jirtaa dhulkiina aamina wax ka soo saarta beeraha tacbada intaas ayaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada ceelkii waa kana beertii waa tana biyihii waa sidan kuwaas kale matoor ayaa saaran hadda maadaama qaybtan cusub ee aan hadda geedaha ku abuuri doono aad arki doontaan waa qayb cusub marka tubayaasheeda hadda kadib ayaa la dhigi doonaa matoorkiina waa la keeni doonaa laakiin hadda qaybahaas ayaa saad u jeedaan qaybahaas hadda tubooyin ayay leeyihiin oo lagu waraabiyaa laakiin qaybtan hadda tubooyinkeeda hadda ayaa la dhigi rabaa wiilasha saad u jeedaan hadda waxay talaalayaan geedihii cambihii iyo canuunigii marka anigana waxaan ku jiraa inaan waraabiyo aniga waxaan xil saarnahay maanta waraabintooda wiilasha inay xiisaanan yihiin inay talaalaan marka la socod wanaagsan insha allah geedihii ayaan hadda waraabinaya daawadayaal saad u jeedaan waa geed camba ah oo cusub hadda la tilaalay insha Allah hadduu eeba cimriga noogu simo geedkan 5 sano ama 4 sano kadib inuu dhalo ayaa laga yaabaa hadduu waraabkiisa iyo caafimaad helo wanaagsan hadda geedkaas aad u jeedaan halkaas aad miraha leh geedkaas waxaan abuuray muddo hadda laga joogo 8 sano dartiisa aniga ayaa cunay halkan ayaa ku tilaalay wuuna soo baxay haddana saad u jeedaan miro ayuu leeyahay marka waxaan kaliya dadaal ayay u baahan yihiin iyo inaad aaminto dhulkaaga oo ilaah kala saarato waxaad samaysana way ku barakoobayaan marka insha Allah dhulkeena aan لو حجر بحابة عينها قبطيراي
gebagabaan waxaynu halkan kusoo afmeeraynaa muuqaalkeeni maanta beerta shinnida shinnidina waynu aragnay geedihii waynu aragnay marka daawashadina aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kulan dambe oo xiisa leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.